madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta ka hadlayay munaasabad lagu saxeexayay hirgelinta mashruuca Freezone-ka dekada Berbera waxa uu ka hadlay khilaafka ka taagan doorashooyinka. madaxweyne Biixi ayaa waxa uu shaaciyay in toddobaadka dambe ay shir degdeg ah iskugu iman doonaan xisbiyada qaranku kaas oo ay kaga tashanayaan khilaafkan ka taagan doorashooyinka oo ku tilmaamay in ay nacasnimo u tahay saddexda xisbi qaran. madaxweynaha oo arrimahani ka hadlaya waxa uu yidhi u baahanahay Soomaaliland inta isla ogol oo khilaafka dhexdeedu yar yahay oo meel wada jeeda oo dhexdeedana ka tartanta oo ka loolanta haddana dadka guud ka wada shaqeysa taana waxaanu ku helaynaa inaga oo arrimaha mabaadiga ka heshiina waxaanu ku helaynaa inaga oo xisbiyadeenu ka heshiiyaan khilaafaadka jira waxaan u arkaa inaynu doorasho qabanno degdega waa muhiim dalkaana u baahan waynu qaban karnaa doorasho iyadoo cid inaga caawin dhaqaale iyo aqoontoona waan qabaa doorashadu waxay dib ugu dhacaysaa waa khilaafka xisbiyada cid kale eedda lama leh xisbiyadu markay diyaar garoobaan ee doorashadii u ka heshiiyaan khilaafaadka dhaqaalaha iyo talada iyo sharciyadana waa la helaya nacasnimada ugu badan waxay fulaysaa saddexda xisbi ee ku heshiin waayay inay doorasho qabsadaan ee khilaafkooda sanad jiitamayo doorashada dib u dhacaysaa dhexdeena khilaaf bay ku abuuraysaa iyo nacayb dhexdeena waayo qofka la doortay muddo 5 sanadood haddii uu kursiga banaan waayo oo sida xilku martada hel la waado kii kale kursiga si weyn colaad ku qaaday iyo nacayb ka kordhay arrimaha dibaddana way naga dhaawacaysaa oo dad tashakari waayay oo doorasho ku heshiin waayay yaa la macaamilaya waxa loo leeyahay dadka doorasho ku heshiin waayay meega harba inuu jiiday sidaa daraadeed waxaan halkan doonayaa inaan uga baaqo labada gudoomiye xisbiyada mucaaridka ah inaanu shir degdeg ah soo nimaadno wiiga soo socda awalkiisa ugu dambeyn si aan ugu gorfayno khilaafaadkan si loo dhameeyo oo dalka doorasho u galo waqtiga Cabdiraxiin Muuli Ismaaciil shabakada wararka Kayles News magaalada Hargeysa.